khadka telefoonka magaalada muqdisho wasiirka cusub arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan. Foosiye, marka hore waan ku hambalyeynaya xilkaas lagu magacaabay. Sida aad u aragtid magacaabistan iyo xilkan? bismillaahi raxmaani raxiim. Haarun, waan salaanta idinka qaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xilkan waa xil weyn, waa xil mas-uuliyadi saaran tahay, waa xil u baahan mutadayacnimo iyo dadaal dheeraada in ummadda Soomaaliyeed ee guda iyo dibadda ku dayacan wax looga qabto xiriirkii caalamka baryaha iyo baryaha ahaa aad u liitay in la soo celiyo dowladaha jaarka ah in xiriir wanaagsan laga bilaabo Soomaalina halkeedii iyo taankeedii iyo karaamadeedii in la soo celiyo. waa gartay. goormay kugu dhalatay inaad jagadan qaadato? waxaa khadka telefoon ku jirta Xayaad Abu Khaliil oo aad wada shaqayn jirteen, siyaasadda ku wada jirteen Somaliland iyo waliba arrimaha bulshada. su'aal aan weydiiyaa waxay ahayd goorma ayay ku dhalatay Foosiye inay bedesho niyadeeda oo ay ka qayb qaato siyaasadda Soomaaliya? su-aashaasaan ku weydiinaya. Haran, muddo dheer baan siyaasadda kusoo jiray. run ahaantii guri siyaasadeedna waan kusoo dhashay, kusoo koray. waxaan 2003 isu taagay madaxweynenimo madax bannaan Somaliland. waxaan mar kale isku dayay inaan ka mid noqdo si aan wax u qabto axsaabtii soo baxaysay oo ururadii. taasi way suuragal weyday sababo badanaydood. marka haddii weli maskaxdaydii iyo cilmigaydii iyo caqligaydii laydii cashuurtii ummadda laygu soo baray aan maxay haytay doonayo inaan wax qabto oo wax bedso oo wax hagaajiyo. Soomaaliya Somaliland way sida kalmid waxay haytay meel aan ka dhashay. waxaan jeclahay labadaba inaan magaranaysaa si wanaagsan xiriirkii dalaylo inaan sii wado, si fiicanna wax uga qabto. waxtar weyna ummadda Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ay saan caawa u tahay inay gaadhaan darajadaas aan dhiirigelin u sameeyo. marka waa muddo dheer baan siyaasadda ku fikiraya si aan dalka wax ugu qabto. waa garta. waxaan rabaa dhegeystayaashuna ay isweydiinayaan bal inaad laba arrimood iswaafajiso. waxaa la dhihi karaa Foosiye dhowr bilood ka hor waxay u ololeynaysay oo doonaysay Somaliland dal madax bannaan, maxaan ku idhahdaa inay noqoto Soomaaliya ka madax bannaanaato. inkastoo ay goosatay 91dii haddana aqoonsi caalami aysan helin. haddana dowladda Soomaaliya ayay ku jirtaa, dastuurkeeduna Soomaaliya waa mid buu leeyahay. marka labadaa bal iswaafaji. arrimahaasi waa arrimo waqti iyo istaraatiijiyo u baahan, waa arrimo doodo badan u baahan, waa arrimo is-afgarad u baahan, waa arrimo waxa aan maxay haytay kaga baxayaa in hadalkii bilowday. waxaan rajaynayaa inuu sii socdo, waxaan rajaynayaa in la sii wado, waxaan ka rajaynayaa in guul ay labada dhinacba ku faraxsan yihiin ay ka dhalato. waa garta. laakiin hadda adigu midnimada Soomaaliya ayaad taabacsan tahay, sax? Soomaaliya waxay jeceshahay sidii madaxweyne xasan sheekh uu ugu yiri qodobkiisii, ma jirto xoog iyo qasab iyo dagaal, waa wadahadalkaa wixii lagu gaarana waa lagu wada raaliyahayna waa insha allah lagu guulaysan doonaa. waa garta. intaanan kusii dayna haddaan ku weydiiyo bal marka hore saad u aragtid taariikh baa meesha ku jirta. waxaad noqotay gabadhii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya noqota. marka maxaan ku idhahdaa taariikh baad samaysay, macnaha kuugu fadhiday saad u aragtid? taariikhdan waa guul hablaha Soomaaliyeed oo dalgeeska Afrika inta deganaya inta degadaha ku noolba guul bay u tahay. mid ii gaara maaha. waxaa kale guul u tahay dowladan tayada badan gaaray madaxweyne xasan sheekh iyo prime ministerka. garanaysaa ay ka fakereen, ku adkaysteen, riskeeda qaateen, muddana ay ku qaadatay sida prime ministerku yiri maanta hadalka ahaa 7 milyan oo qofka laga soo dhex saaray 10 qof oo tayale. waxaan u arkaa hablaha Soomaaliyeed inay baaritaanka dheer ee la soo sameeyey iyo doorashada khaaska ah ee la sameeyey ay guul u tahay. maanta waa meerto anaa jooga berito hablo kala iman doonaan. waxaan filayaa inay hablaha Soomaaliyeed maanta halkoodu kor usii laga kacay, halka ay magaranaysaa in badan ay cadanayeen. waxaana runtii xaqiiqata aan leh insha hablihii Soomaalida ay ka fadhiisan waayey ee u bahraaday ee ka dagaalamay ee doonayay in dalkiisa la siiyo. in badan imika waa la gaaray. dowladuna intii sidii madaxweyne ku ballan qaaday kambeynkiisii suurageliyey. inta hadday anagay nala taallaa sidii hablaha Soomaaliyeed kor loogu soo qaadi lahaa.
waa gartay ka waran maxaan ku idhaahdaa siyaasadda Soomaaliya arrimaha gargaarka bini'aadamada waad ka soo shaqaysay waxbarashada waad ka soo shaqaysay siyaasadda waad ku jirtay Soomaaliya arrimaheeda muddo dusha ka ilaalinaysay maxaa ka maqan siyaasadda Soomaaliya oo adigu wax ka qaban kartaa aniga waxa la yidhi nidaam la xilsaaray arrimaha dibadda inaan maxaa wax ka qabto Soomaaliya dadka tala Soomaaliya dadka tahay dibadda image-kii waa baabacsan yahay waa badcadbadeed waa maxay haytay waxa weeye gaajo iyo baryeekan iyo qaxooti kumayaal talamaan kuna oo dal walba jooga hal milyan baa jooga imika maxay haytay laga ribsaday dalalka jaarka ah Soomaaliya hawl badan baa u taala waxaan ku rajaynahay insha Allah ilaahayna nala qabto in dadaalka ugu badan agnes wax laga qabto qof walba halka loo idmado ihaansha anagoo hadana sida kaashanayna inuu ka soo baxo waxaan ku rajaynaynaa markaan arkayada dadka soo dooray inaan waqti dheer qaadanaynin iyo madaxda hogaaminaysa ee spiritkoodii in yahay ka anaguna ma garanaysaa leenahay oo waxtar wax qabasho daacadnimo rabshan la dagaalamo image-kii Soomaali marbay adduunkan ka mid ahayd oo xoog lahayd oo Afrika 10 dal bay Soomaali xoreysay inay halkii ku soo noqoto ilaahayna inuu nala qabto marka Soomaaliya hawsha hadda taalaan waa hawl adag laakiin waa laga baxayaa haddii aan isbiirka iyo spiritka ku wada waa laga baxayaa insha Allah waa gartay waan ku sii deynayaa su'aasha ugu dambaysa maxaad ku dhihi lahayd asxaabtaadii maxaan ku idhaahdaa dadka wada shaqayn jirteen Somaliland jooga dhageystayaasheeda Somaliland jooga maxaa ku dhihi lahayd maanta Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan waxay idin leedahay fariintan marka hore salaam tarabadan asxaabtaydii dadkan jeclaa dadka ila shaqaynayay dadka kambeynada ila jiray dhammaan halkan hadaliyo iyo salaam baan uga dirayaa waxaan u sheegayaa inaan maanta joogo meel aan wax ka qaban karo oo aan wixii niyadayda ahayd aan ka hirgelin karo Soomaali dhalinyaro oo farbadan baa dayacan in badan hawl baan ku maqnahay in baan magaranaysaa aan jeclay inay dhammaan Soomaaliyeed ma fahamto Soomaali wada shaqaynteeda iyo wada hadalkeeda iyo gudaha laga gaari doono wada hadalladaasaan ku rajaynahay waxaan ilaahay ka bariyaa Soomaali oo maanta meel joogta weyn oo maqaamkii ay hore u joogta in dhakhtar u arko يا سلام يا مدحت Somaliland waxaan leeyahay iyo waxtar iyo wax qabasho ayaan maxaa ka leeyahay waana insha Allah ugu gali doontaa way iyagana dhawaan waxa soo socota doorashooyin baa soo socda doorashooyinka deegaanka ee Somaliland oo maxaan ku dhahay dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda xasiloonida Somaliland aad baa loogu amaanay maxaan ku iraahdaa laakiinse maxaad ka dhihi lahayd arrimaha doorashada inkastoo Soomaaliyana ay aad u adag xilligan in laga sameeyo doorasho waxaan oran lahaa hadda hawl adag oo kale ay taala comment igama banaana Somaliland doorashadeeda hadda hawl kale oo qadiya ah oo fara badan baa ay taala waxaan leeyahay guul dadka ardayda guul baan rajaynayaa anaguna hawshan aan hadda ku jiro ayaa hooyada sidayga ah aan doonayo inaan wax ka qabto kana qayb galo dadaalka ay madaxweynaha iyo prime minister Saacid ay Soomaaliya ka wadaan maanta taasaan taasaan ka shaqaynayaa taasaan insha Allah kula dilaysan doona intiina ay ka bixi doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay taas waxay ahayd Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay si toos ah ayay ugu jirtay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho